ولعي أنا معناها ذكر فنيو استمنهية أي قرحنا لعي وقالك يجمتين لكن وحركتي ماين saacadu markay ahayd 12 galabnimo ama 5 galabnimo iyo qadar 40 ama 35 daqiiqo oo kala ah ayuu weerar ku dhacay markii idaacadda codkeedu kor u kacay al-shabaab waxay ogaadeen inaan ka tirsanahay wasaaradda warfaafinta waliba qaybta radio Muqdisho waxay ii maleeyeen qorshe ah in la idilo marka xaafadda tago xabad ugu horeysay ee ugu dhifteen marka xabadaas waxay ula jeedeen adii wadnaha jara dhinaca wadnaha la aadeen marka ilaa amarkiisu way ugu dhacday waan iga baxday dhulka ku dhacay marka aniga qalabka awatay oo microphone-kii record-kii wixii dhan أفرتي أبريل أيام وحان إمد بإذاعة وحان إمد ماشان وزارة warfaafinta aan u maleynaya markaa in lagu qabanayo munaasabada waxa la igu yiri waxay ka dhacaysaa tiyaatarka waan tagay safka ugu sokeeyay ayaan ka fariistay marka xoogaa joogno dad kala duwan oo qaybaha bulshada ah isboortiga aan lahayd dhalinyarada aan lahayd haweenka dawladda dadka socod dad iska caadi oo dadweyne la casuumo kale dad kala duwan ku sugnaa fanaaniinna way joogeen heesaha halkaas ka socday hees u qaadayo Saciid Daawud Masxaf hees wadani u qaadayay ayaan tagay dhinaca kalena waxa ka timid nashaad heeskii baan xoogaa hees abwaankii heeska inkii fanaankii la heesnay waan ka soo tegay marka fanaan waxaan soo salaamay wariyaal oo fadhiyay meesha halkaan soo fadhiisay waxba la yiri marka aan meel xaggaan fadhiyaa xaafadii ayaan tagay xaafadda markaan tagay buuq ayaa la sameeyay banaanka u soo baxay waxyaabo noocaas oo kala albaabka ayaa la soo garaacay in qorshaha ilaahay markiis waa fahmay albaab labaad ayuu lahaa guriga albaabkii labaad ayaan ka baxay waxaa iga soo horbaxay laba nin oo ka tirsan shabaab waxay isku dayeen inay iqaarijiyaan ha yeeshee ma aysan dhicin ilaahay xaggiisa ayaan ka noolahay waxayna igu dhufteen 7 xabadood markiiba waxaa meesha ku sugnaa ciidamo booliis ah oo aan goobta aan ka fogeen markaan ka baxsaday oo aan ciidamadii booliska ku dhawaaday ciidamadii booliska ayaa iga fujiyay oo xasaas ku furay kadib madaxdii timid barnaamijkii bilowday khudbadihii markii la gaaray oo kale ayaa anaga u baahanay inaan codad duubano dhinaca sameecadda oo afka hore aan tagnay khudbadeesay u socotay xilligaas waxaa hadlaya ra'iisul wasaaraha لكن انتم حسناها هل سنقولها ayaa waxa ay soo gashay hulcii anoo macnaha la fanayo istiminhaya ayaa qaruxna lahay joog marka meeshii oo dhan waxay noqotay meel boor mugdi wala is arki waayo wax aragti maayn oo aragtidu waa waxay iga ahayd wax mugdi qol mugdi ku jiro kale waxaan arkay male
hor intaan weerar ku dhicin anigu idaacadda waxaan ku qornaa warka saacadda ee 5 galabnimo warkii saacadda markuu ii soo dhamaaday sida caadiga ahaydba waxaan u soo degay hoos oo saaxiibaday aan u imid inaan la qaxweeyo annagoo sida u sheekaysanayno ayaa maqaayadda banaankeeda waxaa ka soo dhacay xabad markaan xabaddii wada eegnay wuxuu noqday nin qori wata oo mataqaanaa xabad wuxuu ku riday wiil caseeya oo meesha fadhiyay waxay ii beegsanayaan waxay ahayd waxaan ahay saxafiyad saxafiyiintana waa ogtahay iskuma jiraan qaara dadka wadada saxan ku toosiya sida wasaaradda warfaafinta saxafiyinta ka shaqeeyo kale anigana markaas waxaan joogay radio Muqdisho ay ka nacab yihiin malakamoodka qof walba oo Soomaaliya wuxuu ugu xukuman yahay dil qof walba oo horumarka Soomaaliya gacan ka geysanaya dil ugu xukuman yahay inta kadib markay dhacday sawaxan kan maqlayaa dadku waa dhawaaqooda waa maqlayaa adigu wax oo markaas ii imaanayo caawinaya ma jiraan haddana waxaan is leeyahay adkacdido 3 jeer baan waxaan tirgareeyay inaan istaago marka waan istaagi waayay oo lug walbaaba meesha ka jaban tahay ayaan dhigtay kadibna waan dhacay waxaan arkay gacantii oo xoogaa meelahan qoyan saas u dhahay markii dambe dhiiga arkay gacanta ka arkay dhiiga marka arkay asaas daadhay waa ilaa dhiig badan oo shaatiga dhan qoy maba ka waraayo marka gabdhaha fanaaniinta gabar ka mid ah ay soo carartay garbisaarkeeda iga xirtay sidii waxa ku noqday dadkii dad gureynay isbitaalka loo qaaday ilaa isbitaal Madiina Boston meesha sokoorsada markii la geeyay waxaa dhacday markii way iga jaajeexeen adigu meel waaska ay gashay markaasaa waxaa iga tegey xusuustii baa iga tagtay inka bacdi waa soo noqotay maskaxdayda waxaan dareemhayay in meel kelida ah oo maqas oo saa uu qabanayo orodkii marka aniga aan orday baan waxaan ka hortagayba nin kale oo sii diyaarsanaa oo gudaha maqaayadda fadhiyay marka annagoo kii bannaanka ka cararaynaya gudihii qarax ka dhacay runtii qaraxaas oo dad badan galaaftay qaraxaas dadka uu dilay ee aan garanaya waxaa ka mid ahaa allah u naxariistee agaasimaygii hore cabdiraxmaan yaasiin idaacadda VOD sidoo kale dadka ku geeriyooda waxaa ka mid ahaa cabdistaar daahir sabriyo oo ka tirsanaa TV-ga qaranka runtii cabdistaarna maalinkaa waa xasuustaa waa uu soomanaa maqaayaddana wuxuu u yimid inuu ka qaato afur uu ku afuro waxay go'aansadeen inay iska hor wareejiyaan ayagoo dantooda fiirinaya dhowr mar ayay isoo ataageen mar anigoo suuqa jooga mar wata kuushay guriga jooga fariimaha ay soo dirayaan xad ma aysan lahayn anigana taas markaa dhig uma dhigaynin waxaa iga go'oneed inaan u shaqeeyo bulshada Soomaaliyeed si aan dalkayga wax ugu qabto mar alla markaas soo baxay oo soo degtay oo albaabka aan imid moota aan watay meesha ii taale horta waxaa anaga tilmaanoo cabsidii anaga badatay wariyaal badanaa la dilay dad badan marka waxaa shaqo ka dhigan marka guriga ama goobta shaqada ka soo baxna dhinacyada fiirna dhinacana fiiriyay way banaaneed qofna ma joogo dhinacii kale u jeesta haddana garabka kale haddana waa fiiriyey laba wiil marka guriga meesha taaganay guriga ku dhagan taagan ayagoo iska dhigaya sida qof guriga garaacayo kale marka jaa waxa dhaay waa dhalinyaradan gurigan ay ka tirsan yihiin hatta xoogaana mugdi waa inay dhalinyaro yihiin inay duqiin markaas ma ogeen mootadii iska aaday waa kiciyay kicintii ay kicinaya waxaan maqlay qajajajo baakaday qof dardaray waa ku jeestay yaa waa marka dhaayna xabad ugu horeysay ee ugu dhufteen marka xabadaas waxay ula jeedeen adii wadnaha jara dhinaca wadnaha la aadeen marka ilaa amarkiis way ugu dhacday waan iga baxday dhulka ku dhacay marka aniga qalabkii awatay oo microphone-kii record-kii wixii oo dhan iyo kaameradii sawiradii wixii oo dhan marka alla markaa dhacay kor u fiiriyay kor marka u fiiriyay waxa ay kor taagan laba nin oo bistooladii la ororday oo rabo inay dhameystiraan kulay anigu nimankii i weeraray niman aan aqaana ma ahayn laakiin meeshaas waxaan tegi jiray
maalin walba oo jimco ahayd aan meeshaas tegi jiray marka waxaan is oran karaa maalintaas jimcaha ay isugayeen marka dad badan ayaa qaraxaasi koowaad ku geeriyooday ani marka waa ku dhaawacmay oo lugta midig ayaa waxaa iga gaaray dhaawac oo lugtii waa jabtay marka anoo weli miirkayga taamiya ayaan meesha seexday anoo sida u sii jiifa oo ka fikiraya ninkii koowaad ee xabadda inagu soo riday iyo maxaa xigi doona iyo haddana qaraxii labaad dhacay ninkii annaga xabadda nagu soo riday waa cararay wuxuu galay annaga waxaan fadhinay meel beer ahaan fadhinay isaga wuxuu galay meel howl oo gudaha ah markaasuu dadku isugu yeeray isagoo dhahaya waa hoobiyii ha laga soo xaroodo dadkii siday gudaha uga xaroodeen qaarkood qaarkii carari karana magaaladooda isaga carareen waxaa albaabkayga soo istaagay ciidankii wasaaradda iyo ciidan kale oo wada socda saas ayaa lagu soo bixiyey maalintii 2009 gurigayga laga soo bixiyey ilaa iyo 2015 waxaan ku noolaa wasaaradda warfaafinta qayb ka mida oo ay degaan dadka shaqaalaha ee xaaladahaas oo kale la kulmo kii la socdaa soo wareegta marka asagoo damacsan inuu halkan igaga dhifto isagoo damacsan ilaa amarkiis baashii ka katibtay qash dhacday marka oo la rafanaa wuxuu rabaa inuu ka tuuro oo markaas sababtoo kanna iguma dhufan karo anaa la haysto asagana way ka halawday wuxuu rabaa inuu baashi ka tuuro oo markaas raacsiyo oo igu dhufto rabaa way ka katibtay markaa wahayay iska tuuray dhiiggina wuu iga socda markaas shaatigii jaakadii awatay oo aad u qoyaamiyey marka kaa haya iska tuuray kanna asagayba ka halawday intuu la rafanayaa ka cararay laamigiis gooyska markaa u dhowaaday ciidamo booliis iga hor yimideen istaag markaasaa dha war anigaaba dhaawaca soo ma jeedin dhiigga aaw raggi waa kuwaas luuq ku jiro sidii isbitaal madiine liigu geeyey isbitaal madiine markaa tagay saaladaa lii geeyey qaliinaa galay qaliinkii intaa ku jiroo dhan wixii magaalada saxaafiyiin joogay iyo dadkii saxaafadda jeclaa oo la shaqayn jiray iyo madaxyada idaacadahoo dhan iyo tiifiyada ayaa soo dhoobay meesha intaa kadib waa la dhedhihi jiray waana la qaadi jiray waa la adigu in la isuuxiyo in markii la dhayayo oo la isuuxiyo qadka laga saaro ayaa imaan jirtay aakhirkii dambeeto waxaan xasuustaa galab galbaha ka mida iyo 2 iyo 3 jeer waxayd maaqaan in qays ugu soo laalaabanay horta cabsidaas waa jiraysaa weliga kaligiisna maaha ummadoo dhan baa mataqaanaa waxay ka baqaysaa in aafada shabaabku ay waxyeelo ka soo gaarto haddii lagu dhex arko ayagoo ku dhex jira mishinka dowladda laakiin weriyaasha waxaan dhihi karaa waa ragga keliya u bareeray ee laamiga soo istaagay ee mataqaanaa aan khatartaas boqolkiiba xad aan ka baqaynin inkastoo baqayaan laakiin haddana u bareeray ee laamiga hortaagan marka waxaan isleeyahay baqdin shabaab laga qabo in aan ama aniga ama asxaabta kaleba aanay shaqada u joojinin laga saaro baqdinta ay shacabka gashteen bulshada Soomaaliyeed heer waxay gaareen qof walba qof wax u sheego uu waayo anagana dadkii waxaan ka saarnay cabsidii iyo baqdintii shabaab ugu jirtay sababta keentay inaan ogaarsadana taas ayaa dhalisay shabaabku waxa weeye beerahana ma ogola baddana ma ogola meel ay ogol yihiin male werigi iyo nin madaxa iyo nin kastaba way dilayaan meeshaan waxaa rabaa dadkan isku taryan baa u wada saaran yihiin ayaga xaggooda magac kastaa loo bixiyo adiga waxa weeye inaad dadka
dadka walaalaha waddanka dhibaatadiisa inaad soo bandhigto ma ogola. alla dilaa dhinto laakiin shabaab inuu ku soo waco ama misad kuu soo qoro waa ku dila hadduu ku dhaco asaga kuma abuurin kumana dili karo. ilaaha wax dilo ilaaha noolay taasaa aaminsanahay shaqadeedana waa si gudan hadduu alla idmo. laakiin si gaara saxaafaddu waxaan aaminsanahay inay yihiin isha keliya ee ama dal dhistaa ama dal burburisaa. marka saxafiyiinta Soomaaliyeed meel walba joogaan waxaan u soo jeedinayaa in ay isha sandalkooda ku eegaan